أها أو عبد الرحمن عبد الشكورها محكمة اللجوء عينه جديد هي وتجينه تقول جديدة ما بتجي محكمة دي ضميت كل عقبة مركب واحد أرنتها صوص عتبة انقلاب واحد صوص عتبة ده بقدون كي صوص عتبة الدولة صوص عتبة ما فهمت إمارات كان قدرك بوفينا هي مركب حلو بين واحد سنة كورتك أنت معنا هذه أحمد وهذا هذا قوة تيس كاسينو ان لايف كان كيكو هوريان uga hadlahay oo arintii waxa waaye af gambigii dhicisoobay baan u bixiyay af gambigii dhicisoobay balaan A baa la wataa balaan B baa la wataa balaan C baa la wataa balaan A hadduu ka qarxa balaan B waaye hadda balaan B waaye kan fashilmay oo cabdi qaybdiid oo sanatarka cabdi qaybdiid oo aad og tahay qofka shanaad inuu yahay qofka shanaad oo awoodda waddanka ugu sarreysa inuu yahay ninkaas ayaa waxaa la rabay inaa maaragtay la qaarajiyo haddii maaragtay intii gurigiisa lagu tago la qaarajiyo waxa weeye qof kasta meesha qoriga ka qaato ilaahay baa na badbaadiyey maxaa la yidhi shirma qabe ilaahay baa u sacbagogla marka waxa waaye saaxiib wuxuu ahaa afgembi dhicisoobay arrintaana saa ugama harahayaan hadda clip yaroo waxaan soo helay oon rabaa inaa idin maqashiiyo aeroboortka diyaaradaha imaaraadka dadkay ka qaadeen oo aeroboortka ka qaadeen oo xildhibaanaday ka qaadeen oo hadda maaragtay 28 xildhibaan ahaa walaalayaal waxa weeye maaragtay dad aan quusanayn oo danleey ah oo jeebkooda keliya ka fakerahay oo waxa waaye koodharada saal shilimada lagu guranayo Soomaaliyo idil bay waxay siisanayaan waxay maalin ku qadeeyaan baasaboorkaas wuxuu wataa maaragtay form country-ga buu wataa kaasu asagu wuxuu u arkaa nolol uu arkaa laakiinse ma aha walaala kaasi annaka kan danta noo wada waxa weeye inaan annaka maaragtay aan xukunno waaye inaan iska celinno waaye inaan waxa weeye la xisaabtanno waaye aniga aad iyo aad baan waxaana uga xumahay dadka noocaas ah oo waxa weeye maaragtay masna xildhibaanadii ku jiroon tilaabo laga qaadayn waa maqlaysa xildhibaankii labadii nin uu yidhi labadan hala iga qaada xasaanadda si aan u baaro oo aan ula xisaabtamo waad ogeyd intay isku yimaadeen inay yidhaahdeen lama taaban kara xasaanadda lama qaadi karo war qofkan hadduu tuhun soo galo oo waxa weeye maaragtay uu waddankiisa rifanahayo hadduu tuhun soo galo dee ka garbax waxaad tidhaahdaa aniga come clean haddaad nadiif tahay dee cidna waxa weeye maaragtay kuguma xadgudbayso maalin kastaa lagu istaajiyaa maalin kastaa su'aalo la weydiiyaa qofka waxa weeye safety-ga waddankaa ku xiran haddana ninkii saaxiibkeena hayo ugu weynaa muxuuba keenay maxkamad ba tegi mahayo dee kibirka intaa la eg dee daamin waxa weeye waddanka sharci kama jiro waa waddanka wax sharci ahoo ka jira ma laha waa daamin waxa weeye waddanka constitutionkiisii baad maaragtay aad ku xadgudbaysaa ood leedahay ma aaminsani marka walaale axmedow waa la badan yahay dadka opportunity baan rabaa inaan siiyo noo soo gabagabee okay walaala marka waxaan kusoo gabagabeynaa axmed ugu dambeyn kusoo gabagabeynaa waxay tahay انقلابك يرى دعسوي هذا أتكلم واجس عبد القيدي ده كل جيس ما هن حتى عبد القيدي انقلاب كله جهوري وجهوري إن عبد الرحمن عبد الشكور لفتي بسا أو هاوتي أرنت هرو يقول جيس كله جري بس أجو عبد الرحمن عبد الشكور لا بالبادية أرنت عبد القيدي ورد مع سنة اللي هو متكملين لخارجية خارجيس كوكبت بعد عبد الرحمن عبد الشكور وكبت بعد ما فهمت لا وكبت بعد كي لبعض السوم اللي جنا عبد القيد بويله وكبد بادي لبعض الناس سيد سيد كله والسعودية ما عمش كلها ونو باش مش وين دقنانا أيجي صح لبعض الناس اللي ربي باش ودني قريقة كنا أيجي إلا هذا لكن إلا هذا انقلاب كلامي منه ضد القصة إلا عنا الربا لكن يقول أرنتان يقول ضد مثل ماشى بالعون الدونا لكن وحكوسه سعطة أرنت ما فهمتي وإن شعبية الصومالية كعان كهر تجان أديات شعبية الصومالية وروان نقول حجراء إنها كعنا فدية أو ضدك جريها اللي يقول أفر لبعتك ساعة دولة ما كور هيسو عيد أنت توطأ ماشى دجن
waan lagu dhex adeeganaya inaan iska qabana loo baahan yahay anaga iyo shacabkii baan la iska horkeenaya axmedow baleen kale meel kale u furan walaala male fiiri meel kale u furan male anaka malaha hadda waxa weeye ilaa qof la qaarajiyo ilaa axmed waxaan ku dhahay ilaa qof la qaarajiyo oo qoys ka mid ah moogi wada kale u furan malaha macaan aad waa inay hadda wadada qaarajiskiya maalin walba albaabka lagu sigaa ma fahamtay ilaa qof kow looga siiyo qori laga qaata mahane waqti kale wax ma soconayo mucaarad ma bilaabanayo dadka jifa been bay u moodaa wax walba marka waa arrinta laga dambeyn rabo inuu qof la dilo qofka aataba marka waa in ummadda Soomaaliyeed ay ogaataa arrinta sida u ognay u ogaataa waxa nidiisu gudbinayaan waa midnimo qaran inaad fadhiga kacdana loo baahan yahay ka hortagtaan dadka waddanka dhex adeeganayo shacbiyadii dawladda iska horkeenayso jir iyo joogan la khayra iyo farmaajan la xukuumadooda aad baan ku salaamay Jaanis ku xasan haye axmedow aad baan ku salaamay ma sha Allah haye guul saaxiib Allah ku barakeeyo ma sha Allah walaalayaal soo dhawaada wasageen fadlan noo sheer gareeya عاوش ما شاه ما أنت من مصر كرين رالي هذا مركز توحوي شاه وأنا كاهل ماما سودو هذا إن ولا الكيبة وهري أحمد إن ولا أحمد الله بركيه إن كسوا إن كم من مقرن واي تيم كم من مقرن إن هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الواقع السلام هذيك أنا اسكو مقعتين أحمد my friend سمي جيجا ها واحد دتك أحمد دتك اللي يراه هذا وهالجميال باللي يريه حكي كثيرة ما قصر ما شاء الله جالسين ماذا سويدوا كوجا والله بالله حد يبعت أما تقانا إن مر والبيضات تقول ديانا نيد نيجي تشميان معركتي وحياة بدن رصيدة أو كلا كالسعودة لكن دتك مرة عسنا والله marka aragna hadda dad sidaas oo kale Soomaaliya bal niyada u dhisay oo dadkii raba inay gubaabiyaan ee hurdada ka kiciyaan I'm actually happy for that wallahi waa wax aad u wanaagsan ma sha Allah waayo Soomaaliya waan ku dhalanay waa maxay ahayd waa wadankeeni waxaana jecelnahay inuu noo hagaago anaga qurbahan ku koray I have no clue like Soomaaliya xitaa hadda say u egtahay ma xasuusto half of that laakiin waxaan jeclaa lahaa wadankeeni inuu dhismo si aan maanta ubadkayga aan halkan ku dhalay Canada aan ugu korsado oo nabad iyo nolol ay arkaan oo iraado baldaawada barwaaqada wadankeena taala oo ay ku farxaan laakiin afar xulul calooshooda u shaqaystayaasha balaayadan baas ayaa dalkeeni dhibaateeyay oo dhib wada walaal ilaahay ha naga qabto horta shartooda laakiin hadday Soomaalidu iskaashato waxaan hubaa in dawladdeena ay dhismayso ana waxaan arkayaa khayra iyo farmaajo inay yihiin dad wanaagsan oo nolosha soo arkay dhabta ah oo dhulkooda macaanka iyo maxay ahayd farxadooda soo arkay oo raba inay hagaajiyaan ee dadkooda hormariyaan waayo qurbahay soo arkeen dhibkay soo arkeen war dhulkan dibadahan la jooganiyo walaalo waa marti baan ku nahay marti ma u nihi hadda si kasta maanta aan wax ugu barano aan ku shaqaysano oo caadi aan nahay oo dadka la simanahay haddana waxba naga maqan still berri marka gaal xuno adoo rabo oo kugu xanaaqayo korna go back to your country marka country-gayga la dilo oo dadkii la xasuuqayo halkeen ku noqonaya marka it's very sad waa wax laga xumaado صح Soomaaliyeed wallahi walaal inay isku sheegaan xaqiiqada ayaa fiican hadda waxaan dawladda ka socdo ee daba boodaya ee kalba dhinac wax ka qasaya ee maamulo iyo balaayo waxaan la aqoonin wallahi waa very sad Soomaaliya waa hal mid Soomaaliya walaal adaa ku watee Soomaali baa leh eeg fiiri Soomaaliya baa leh waxa waaye anaka cidna dhaxalkayga iyo sharaftayda uma daba istaagayno walaalaan leenahay adoo kala walaashay ah inta damiirkoodu nool yahay oo sharafta Soomaaliyeed ka dhiidhinaysa oo sharaf Soomaaliyeed raadinaysa walaalaheena uma daba istaagayno cidna uma daba istaagayno waxa weeye Soomaali baa leh maanta waxa weeye anaka gacmahayga isku cadaabnay godka anaka isku ridnay anaka dhibka isku geynay haddii aan helnay walaalahay haddii aan helnay laba nin oo naga soo saari karto maanta daacada eeg fiiri qof Soomaali ah oo Soomaali ah baa meeshan madax ka noqonaya Soomaali citizen baa madax ka noqonaya Mexican ku noqon mahayo wax weeye maaragtay en Talyaani ku noqon mahayo qof Soomaali ah ama gabar ama wiil baa madax wadankan ka noqonaya xaqna u leh
أدي marka أدي لكن حقيني بأنا القرب مرسيني ولا walaal وحال الروا إن سومالي أنت هرتي لبابيو dad xun baa dawladda ku jira waxaas oo dhan ha laga kashifo waxaas oo dhan waa in la kala falaqeeyo la kala saaro balaayada ku marmirsiyoonaysa ها dawladda sa hadda intay dhibaato ay dhax wadaan ay wax laaqayaan ay dhinaca kolba dhinac uga soo baxayaan ay dawladii howl kala wada bal hadda intay dawladda qabato xitaa in la xaqriyaal rabaa Soomaarkiis in kolba meel looga furo tashuush kolba sheeka dadka la jahawareeriyo si hadda dawladii uga kalsooni baxaan laakiin aniga runtan ku sheegaya siyaad bir Allah uu xariisto kuma soo gaarin mana arag dawlad nabada hooyaday aabayaan ka wareystaa sidoo wadanka ahaa jiray laakiin honestly speaking maanta dawladda jirta waa mid kaliya rajo ku arko wallahi wixii ka horeeyo dhan ee kolba la dhahay Soomaali madaxweynaha u dhashay okay umayra ilaahay khayr ha ka dhigo laakiin habeenkii farmaajo la doorna ilaahay macbuudka igu og farxada la ooyay why because waxaan arkay inay rajada Soomaalida soo noqoto waxaan arkay inuu rabo Soomaalinimada iyo midnimada qaali agtiisa ka tahay waxaan arkay inuu maaragtay dadkii raba inay horumar gaaraan hadda wax badan ay qabteen within 9 months waayo dawladda Soomaaliyeed ee qabatay hawada soo wareeji dadkii maxaabiista ka soo saar waxyaabo badan oo la arkayo ay qabanayaan dawladda isku dabaridayso waxyaabo badan haddana maxaa dhacay ay dadkeena u gara laayihiin صح waa wax laga xumaado maxaa keenay inay arki laayihiin intay dawladda qabanayso intay ma aragtay ay nahagayso inta wax badan noo sameynayso ma aha in lagu mashquulo waxyaabo yar oo qalado meelahan ka dhacay waayo ayagu ma wataan dad kala wax qasanaya oo dawladda garab boodaya oo raba inay dadkii ku soo jeediyaan dawladda sida dawladda hal mar wax ma qabato waa inay horta agta ka fariisataa oo time ay wax gelisaa ay wax ku habaysaa oo la siiyo wax badan ay Soomaaliya burbursanay 27 years waqti yar ma aha waqti yar ma aha walaal adiga ku wate waana la yara badan yahay marka walaal waa runta waqti 27 years waxa waaye horta wax 1 year iyo 2 years lagu dhamayn kara ma aha reality-ga fiican runta fiican ma ogtaa waxa lagu dhamayn kara ma aha sanad iyo wax la mid ah inta walaalle maanta naqasaysa oo dhaxalkaygii rabtay inay ku tumato oo waxa waaye horumarka iyo future-ka noo diidan waxa waaye waa dad farayar waaye waa dad tirsan oo la og yahay oo waxa waaye maaragtay qaarna waxa weeye dambiilayaal waaweyn yihiin qaarna dambiyaal kuwaas waaweyn ay puppy dog u yihiin waa hadda anaga waxa naga dhamanaya waa dadka shacabkeena inaan ilaalino ummadii way dhamaanaysaa caruurtii mustaqbalkoodii futurekoodii waxbarashadoodii wax laga fikirayo ma jirto they don't give a damn every day maalin walba qof baa dhimanaya how is that even possible dambiir xumadani waa maxay صح that's what we need spirit kaasaan rabnaa that's what we need spirit kaasaan rabnaa walaal spirit kaasaan rabnaa waa inaan niraahno may no and waxa way meel kaaga enough it's enough aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay Soomaaliya ha noolaato ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkan sanadkiisii inta ka dambeysaba Soomaaliya inay salkeeda ka degto oo ilaahay cadaawada naga saaro waayo hadda imaaraad ba afka nagu soo haya Soomaaliya barwaaqada taalo waxa la rabaa in loo jilbalaato okay afarta qablood ba cadow nagu jira anaga kaliya ma aha anaga hadda way ka waaweynta sheekada dad shisheeye ayaa u soo haminay wadankeena haddana anagu marka isgaran weyno oo isqabo weyno wallahi billahi far iyo sul baan ugu qabanaya hadda wadankan Canada ama America Ali Besteenka ayaga wadankan lahaa waxa sida loo dhibayay oo la rafaadinay ayaa hadda waxay hayto containero ayaa waagi hore lagu aruuri jiray oo la silciyay oo wadanka dhan laga qaatay marka Soomaaliya hadday joogso weydo baqbaqdan iyo hebel iyo kutirkateyntan ee jooji weydo wallahi sidaas aan noo soo socoto iyo si ka xun marka waa inaan hadda ummadeena aan gubaabino inta maskaxda leh ee ka fikiraysa anagu waxaan rabnaa generationkeena iyo generationka ka dambeeya iyo wixii ka sii dambeeyo inuu ilaahay wadankeena oo nabada ay arkaan ay ku raaxaystaan ma sha Allah future-ka ilmaheena nolosheena dambe in anagu aan u dagaalano wixii tacabka awoowayaasheen nooga tageen ee u halgamayeen waa in anagu u soo jeesanaa waa inaan iska qabanaa intii xun nin xun qabiilna kula ma aha tolna kula ma aha hadduu walaalka kula dhashay hooyada macaan dhashay u yahay oo qaatil yahay geli jeelka he needs to be punished ما شاء الله we need to stop this shit
وان كدال نسيب قاتين بان كتاغنا ولاalo geesiyad yaa naga qabta shartooda geesiyad baa tahay allah ku barakeeyo noolow aad iyo aad baan ku salaamayaa كل واحد السلام السلام عليكم هذا ما هتصنتي انت كان ما هتصنتي waa kuwa hadda gabdhahayagii waa kuwa hadday militariga gelahayaan insha allah hilfahan waxa weeye maaragtay waa Soomaali baa le markaan ku celcelinahay dad isbiiradkaas loo dhiigaas la baa ku jira saaxiibkay soo dhawow Soomaali ha noolaato walaal soo dhawow ii waran seeta wallahi waa fiicannahay oo ku salaamaya adiga iyo asxaabta dhamaantiin waxa weeye ma sha Allah hawl fiican baa haysaa adiga iyo kula fikirka magacaagan ka helay dhalad Soomaali ما شاء الله عادي ما guuleyso maxaad nala wadaagaysaa waxaan la wadaagayaa Soomaaliya ha israacdo aan isu ducayno aan qulubta isku furno qabyaalada iyo qurunkana waxa weeye la iska daayo wadankan waxa weeye qof walba Soomaaliya iska leh oo wax ku leh taas hala aamino horta hala dadku waa inuu galaa qalbiga waa inuu ka galaa jacayl wadaninimo wadankaaga adduunyada tan waxa ku leedahay intaas maaragtay qaaradaas ku lagu UN taas ay jeexday baa ku leedahay marka dhulkaagaas ku iimaan qab nin walbana ha aamino maaragtay wadankiisa dadkiisana maaragtay ha jeclaado qabyaaladan waxba nama tarayso wax wanaagsanna maaha maalin kasta in maaragtay dhalinyaro Soomaaliyeed ay dadkii kala qaybiyaan oo qabyaalad iyo bakti ku qaybiyaan marka anu waxaan dhihi lahaa Soomaaliya ha israacdo hadda waxa weeye guul baan ku soconnaa si wanaagsan bay wax u socdaan markii wanaagu socdana dad baa wax isku dayaya inay hor istaagaan oo carqaladeeyaan taasna waxa weeye inteena caqliga leh waa maaragtay aan ka yeelayn dawladda Soomaaliyana waxa weeye ma ahan wax laga dumin karo maaragtay Facebook hadda nin Soomaaliya meeshan ku jira Soomaaliya ha dhacdo soo qoraya waxaas maaragtay waa kee aan shoot gareeye waa haystaaye waa kee aan way xiran tahay nin Burhaan Maxamuud leeyahay Soomaaliya ha dhacdo waxa weeye wax la maaha maya waxa weeye Allah soo hanuuniyo bukaan socod isbitaal cusub baan furnay Maryan Khaliif waan ku salaamahayaa isbitaal cusub oo waxa weeye maaragtay gabar la yiraahdo Jamila Clinic baa la yiraahdaa isbitaalkaas bukaan socodka loo furay waxa jooga dhakhtar qasara baa jooga oo la yiraahdo Cabdullaahi Gentleman baa dhakhtarka qala oo kansar markuu ku noqdo oo cudur xun ku noqdo dhakhtarka qalana waxa la yiraahdaa dhakhtar Boodhari marka ku soo dhawaada halka aadade dadka dawladda taageersan ee Soomaaliyeed waa 99% waxa weeye waa dad dawladda oo jecel waa dad wadankooda jecel shakhsiyaad maaragtay qabyaalad iyo wadanka in la gato ku taageerayana waxa weeye aan u joojinayno waxaan leeyahay Soomaaliya maaragtay ha israacdo ilaahayna ha laga boqo oo qabyaaladan ha la iska daayo dawladdan way israacday ma sha Allah adigana waa ku salaamaya halgamaa sare kulay waxaan u maleynayaa dadka loo baahan yahay baa tahay oo inay maaragtay ciidamada iyo dadka u baahan inay tababartaan maaragtay casharada u bixin doono kulay saasaan maaragtay u arkaa aad iyo aad aan guuleyso walaal guuleyso waan kaaga mahadcelinayaa waan salaamaya markastana garabkiina nahay Soomaaliya ha noolaato waana ku salaamaya adiga iyo asxaabta dhamaantiin ما شاء الله قولي سولا thank you واي سلام عشو عمر وانكو سلامة يا عبد وانكو سلامة يا حسن وانكو سلامة يا one more chance او ياسين صاحبك بالكي نكان نقالي اوي ان ادياد باندين سلامة يا دمانتين مردوينا اسكي جبن رباه ان over 1 hour aan ku jiray marka walaalayaal waxa weeye arrimaha socda aan ogaano hawluhu meeshay marahayaan aan ogaano walaalaheena waxa weeye maaragtay waxay noo sheegahayaan oo markasta waxa weeye maaragtay ay noo sheegahayaan waad arkaysiin waa maqlaysiin waxa waaye maaragtay aan maanta aan annakii waxa waaye maaragtay aan yaraysan karna ma aha
marka arrimahaas oo dhan inaan la soconno waaye fadlan noo sheer gareeya adinkoo raalli ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay halo ma maqlaysaa walaal halo ma maqlaysaa halo walaal codku kaa maqan yahay codku kaa maqan yahay ma maqlaysaa soo samaacadaan iska bixinaya raalli ahow waa opportunity aan ku siiyey waa codkaaga waa waxa weeye codkiisaan joogin wuu dhacayaa walaalkay marka walaalayaal waxa waaye inaan aad iyo aad arrintaa uga digtoonaano arrintaas aad iyo aad inaan uga digtoonaano waaye meel kastoo aan joogno arrintaas inaan waxa waaye maaragtay aan fiiro dheer u yeelano cadowgu meel kastuu joogaa cadowgu wuu nagu badan yahay cadowgu surrounded waaye cliptan yartaa baa idin maqashiinahayaa ha walaala waan ku maqlahayaa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سو دhowow waan leeyahay adiga iyo dhammaan walaalaha ku jira meesha salaamaya waana maasantiin aadan idinkugu mahadcelinayaa barnaamijka aadka u wanaagsan صح iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed walaal marka hore arrinta waxaan rabay haddii ay macquul tahay horta aad baad u mahadsan tahay sida hiirada iyo sharafta ciidankeena Soomaaliyeed ay u soo celinayso aad baan thank you waa mahadsan tahay walaal waa adaa mudan anigu waxaan islaamay ninkan ma muqdisho jooga ka tarsan tahay horey ugu soco walaal maxaa nala wadaagaysaa guulaha maxaa nala wadaagaysaa meeshaan waad ogtahay in maaragtay anigu aad bay guulaha u badan yihiin ilaahay khayr ha siiyo guulaha aad bay u badan yihiin laakiin waxaad moodaa in wadamo shisheeye ee faraha nagula jiraan qof Soomaaliya ee ka qabsanan arrinta jirto marka runtii arrinta jirta imaaraadka maanta qof Soomaaliya ay ka qarsan tahay haba yaraatee ma jirto waxaa la yaabanahay dad ilaa hadda ka indhaxiran maaragtay indhaha ka daboolanayo waxa ay wadaan imaaraadka xaqiiqatan waxaa aaminsanahay in qoladan la yiraahdo Ethiopiaanka inay noo bedelaan imaaraadka marka waa inay dhalinyarada Soomaaliyeed ku baraarugtaa waa inay indhaha kala furaan waxyaabaha ay wadaan waxyaabaha ay nagu wadaan imaaraadka waa inaan midownaa waa inaan iska dhaafnaa waa inaan kasoo horjeesanaa waxyaabaha ay wadaan aad iyo aad walaal waa ku maqlahay sax wey midda kale waa inaan garab galnaa madaxweynaheena iyo khayr horta waxa keliya oo aan qaban karna hadda la joogo waxba ma qaban karno laakiin dagaalka hadda ugu weyn ee adduunka ka socda walaal qoray maahan in la qaato waa social media oo ka socda xaqiiqatan walaal wax waan qaban karnaa walaal magacaaga igu soo celi raalli ahow adoo raalli ah yaasiinow walaal wax waan qaban karnaa cabdi xakiin wax waan qaran raalli ahow wax waan qaban karnaa cabdi xakiinow waxa waaye maaragtay waddankan waa dhaxalkaagii waa dhaxalkaygii waa sharaftaadii waa sharaftaydii Soomaaliya Soomaali baa leh waxa weeye inaan wanaagga faafino waaye inaan iswacyi gelino waaye qof kasta eeg fiiri anaka aabbayaasheen Soomaaliyan figureski oo aabbayaasheen ahaa oo xornimada noo keenay 13 wiil oo waxa weeye maantay aniga iyo adiga adduunka anakoo kala joogna gees to gees baan halkaa ka sheekaysanaynaa ayakana waxa waaye wax ay haysteen oo ilaahay uuntay oo faras ka weynaa ma jirin reer galbeed bay waxa waaye maaragtay u barbac dhigeen xornimo nooga soo qaadeen iyadoo bisil bay noo keeneen gacmahaygaan ku qaadanay gacmahaygaan ku burburin wax waan qaban karnaa walaale wax waan qaban karnaa 4 nin oo waxa weeye maaragtay shilinka hoo sharafta keen ah anaka waxa waaye future-kayga baabi'in mayso future-kaaga baabi'in mayso kaygana baabi'in mayso waa inaan taa u sheegnaa walaal midaan rabo inaan kuu sheego horta dagaalka hadda jiro oo ka socdo social media-ha kaa keliya horta qofka qurbaha joogo maanta haddii uu dalka nagu laabto waa mas'alo kale laakiin hadda intaan qurbaha joogno dagaalka aan ka qayb geli karnaa waa social media walaal sidaasaan rabaa inaan kuu sheego social media-ha buu qofka ka difaaci karaa wixii wanaagsanay oo socday midda aad ka dhawaajisay hadda
dhalinyartan yar ama xaqiiqatan horta hadda wadanka sida ay u badan tahay dhalinyara la wareegtay inkastoo weli odayaasha ay qalalaasa wadaan qofna horta sideedaba horta qorax soo baxday qofna gacanta uma dhigi karo gacanta kuma dhigi karo walaal fahmaysaa waxqabadka tusaalaha ugu yar oo kugu fudud walaal waxay tahay ma garanaysaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan xeere waxaa tusaalaha keliya kugu jira waxay tahay iska qabsi horta meesha kugu jiro alxamdulilah xaqiiqatan waxaa keliya oo aan ku farxo mida dowladihii ka horreeyey waa aragtay sax way isqabsan jireen way jiijiidi jireen dadkan walaal marka alxamdulilah iskuma dadkan waa dad yani tastay oo rabaan inay wadanka wax u qabtaan laakiin dad baa lugaha ku dhegan waxaana la socotaa dadkaasi lugaha ku dhegan ma ahan dad danaha soomaaliya ay fiirinayo maanta qof walbabana way ku baraarugsan tahay dana soomaaliya ay fiirinayaan imaaraadka lacag kasoo qaateen imaaraadka ay mar walbaba dhowlayihiin ay ku jiraan dad baa waxay leeyihiin oo maxaa haddii imaaraadka lagu siro ewelba ayaga waxay ku siri jireen meelo kale okay ewel meelo kale ay ku siri jireen waa runtaas laakiin ayaga ma aysan u siri jirin in ay ka qaataan dad kale ay ku duumiyaan dowladda jirtay maxamed cabdullaahi farmaajo laba dowladood jirin walaal ii dawa dheer laba dowladood buu joogay xilligii maaragtay oo asaga siyaasadda uu ku jiray dowladdiisa sharif iyo dowladda xasan sheekh maxamed sax marna ma aragnay asagoo inta dal kale u tegey lacag ka qaadanayo oo raba inuu sheekh sharif dowladdiisa dumiyo ama dowladda xasan sheekh maxamed dumiyo inta waxay tahay ma aysan jirin walaal marka inta ay Soomaaliya ka socoto niyo aniga Muqdisho ku dhashay cabdixakiino waqti baan ku siiyay walaal la guuleyso walaal Soomaaliyeed baa tahay waan iska gabagabaynahay hal arrin baa ka hadlaya niyo Muqdisho ku dhashay intaas ay jireen dowladda xarka lagu soo dhisay Cabdiqaasim ilaa haddana wax xasuusta dowladda xaqiiqatan dowlad walba oo dhalasho dad baa lugaha ku dhago oo khadka ka bixiyo fahmaysaa marka su-aasha isweydiiyo waxay tahay aniga hadda waxaa jira 32 sano jiraayo okay aniga dadkaas baa mustaqbalkii ku soo ciyaaray oo meeshaan keenay oo qurbi soo fadhiistay fahmaysaa qof maanta qurbaha inuu ku noolaado ma jirto oo raba inuu waddankiisa ku laabto aad iyo aad guuleyso hal xabo carruurtaada iyo carruurtooda yaa u maqan marka haddii hadhowdi dowladdan hadda jirta laga jiro ilaha u maqan cabdixakiino waan kaaga mahad celinaya walaal codkaagana wuu googo-ayaa thank you walaalkay aad buu u mahadsan yahay codkiisa waa maqli waaye last minute wuu ku mahadsan yahay hibaaq baan soo qabanahayaa one oo ugu dambaysa marka walaalayaal waxa waaye maaragtay codkiina waa idiin soo gudbinahayaa aan idiin sheegahayey meeshaan walaalayaal arrintu way weyn tahay aad iyo aad bay u weyn tahay waxa waaye dhagartu way badan tahay guushana way badan tahay walaalayaal ra-iisul wasaaraheenni waa maqlayseen allaha barakeeyo ra-iisul wasaaraheenni aad iyo aad baad u maqlayseen inuu waxyaalo badan ka dhawaajinahayey in maaragtay uu guulo badan noo sheegay fadlan noo sheer gareeya walaalayaal noo sheer gareeya sheerkaa waa hilmaamaa askari baan ahay mar kaste noo sheer gareeya الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaalka aad baan ku salaamayaa seeta aad baan ku salaamayaa waana ku salaamayaa waana hurday raaliga ahaw waa madowdahay meesho mar barnaamijku waxaan maleynayaa inuu ka hadlayo kolley dhagar niyow marka hore dadka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan waa salaamay wadankana dee waa wadan burburay oo dhibaato ka soo daalay haddana dee waxaynu u baahanay inaynu qarannimo hiigsano inaynu qabiil dib ugu laabanno ma rabno hadal aad iyo aad u wanaagsan buu ra-iisul wasaaruhu meelan dhaweyd yidhi wuxuu yidhi ninkii qarannimo doonayow waxaa ina hor yaalla buu yidhi saaxiib farmaajo la yidhaahdo oo madaxweyne wanaagsana baad haysataa buu yidhi ninkii burbur doonayowna iyo dhibaato doonayowna 27 sanaad haysataa buu yidhi oo ina soo dhaafay ninkii dhib doonayowna hadalkaas ra-iisul wasaaruhu hadal dhaxalgalab uu ahaa maasha allah wadankeenuna hadda qabiil uma baahne wuxuu u baahan yahay wadankeenu in
dee la mideeyo oo hadda hawadeennii baynu la soo noqonnay dhulkeenna wixii naga maqan aynu soo ceshanno badaheenna aynu ku filaanno marka inta reer iyo qabiil laysu fiirinayo waxba lagama baran casharkii hore dadku markaan odhan lahaa waxaan ku talin lahaa waa in la dabargooyaa walow kaana walaalkayna ha ahaadee walaalkayoo qaranka dabargoynaya ciddii soo qabanaysa garab baan ku siinayaa sidii loo cirib tiri lahaa kuwa sharwadayaasha ah ee lacagtii waddan waana in xisaab lala daba kacaa cumar cabdirashiid iyo intii maamulkii hore soo waday ama badda boobtay ama beriga boobtay waa in xisaab lala daba kacaa akoonadooda dubay la daba galaa dowladaha imaaraadka la dacweeyaa baddeenna ay ka baxaan imaaraadka uu ka baxaa hal qaran baan nahay hal waddan baan nahay dowladdeenu waa inay awood isticmaashaa ay awood adag ay dowladdeenu ay isticmaashaa waana ku bogaadinanaa wixii ay qabteen dowladihii soo jiray oo dhani waa ku bogaadinanaa haddana tan waa inay awood waa inay isticmaashaa ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo iyo ciidankeenna qaranka dhammaan baarlamaankeenana salaan aad iyo aad u qaaliya baan hawada u marinanaa iyo inta khayrka ka shaqaysaba maasha allah maasha allah maasha allah walaala guuleyso midda kale waxaan rabaa inaan kuu sheego anigu waxaan joogaa magaaladii madaxweynuhu ka yimi haye oo kambeynka galay oo la galay baan ahaa habeenkii ugu horreeyay xafladan meesha lagu qabanayay ninbaa ilaahay ka hadlinayay aabanuur baa la yidhahaa magaaladan degan wuxuu hadiyad baan kuu wadaa sidaan wax kale aan u suganay buu calanka soomaaliya ku wareejiyey oo yidhi giftigaasaan kuu wadaa maanta madaxweyneaad tahay waddanka hogaami buu yidhi moogtaa maasha allah ha marka waxaan jecel lahay inay dadkeenna wixii qarannimadeenna iyo sumcaddeenna iyo magaceenna ku ciyaaraya aan qabiil loo raacin waxaa si wanaagsan u hadlayaan bogaadinaya ninka la yidhahdo cali maxamed geedi aad iyo aad waxaan cambaaraynayaa ninkii maalintii dhawey siyaasigii iska dhigayey mishinka dhigayey ee la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdishakuur oo yidhi dadaan caasimadda u dhalan baa nagu dhibaya hadalkaasi hadal laga aqbali kara ma aha hadal oo koob shaaha u goynayana ma aha sax waa arrin expire ah weeye walaale adaa ku watee horta allaha ku guulaysiiyo markasta waa aniga ku celceliyo soomaali baa le soomaalida damiir kale weeye waxaan raadinayno annaka waxa waaye maantay walaale futureka wuu qurux badan yahay sasaanku wuu qurux badan yahay horumarkaygu wuu qurux badan yahay inaan xegsano oon gacmaha isqabsano oo niraahno inaan voice u noqono waaye hadda ra-iisul wasaaraha maanta markii la wareysanayo waa maqlaysay arrinta aan ka naxay oo waxa weeye waana malaynahayay arrintaasi inuu leeyahay sida runtii waan malaynahayay oo la weydiiyey waktiga aad heshid maxaad samaysaa la yidhi waktiga aad heshid maxaad samaysaa uu yidhi waktiba iima soo har uu yidhi midda kale waxaan kaloo ka codsananaa dowladdeenna aan ka codsananaa aan hawada aan u marinanaa dowladdeenna wax kasta oo dhaca waa inay sida ugu dhaqsaha badan ay ka hadashaa ay ka jawaabtaa oo ay dadkeeda ay la hadashaa dowladdeenna waa inay mar walba ay ka jawaabtaa wax kasta oo dhaca oo sababtii waxaasi ay ku dhaceen ay miiska soo dhigtaa dowladdeenna aad iyo aad waa iska gebangebaynahayaa walaala allaha ku guulaysiiyo markastaan isla soconno waxa weeye weelkan kusoo dhawow midnimo qaran annaka walaalo waxaan ku nahay horumarkayga waa dhaxalkayga walaalkayo dhammaan midnimo qaran oo dhanna waa salaamaya waan kaa qaadnay walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay thank you walaalkay aad baan u salaamahayaa walaal qiimo badan buu ahaa allaha guulaysiiyo walaalayaal arrinta oo mar kasta waxa waaye walaalayaal mudan in laga sheekeeyo waxa waaye ama saameyn ballaaran uu ku yeeshay arrimaha soomaaliya sida laga soo xigtay ila wareediyo lagu kalsoon yahay oo dhanka siyaasadda ah maqlaysiin qaar ka mid ah warbaahinta caalamka oo soo xiganaya siyaasiyiin soomaali ah ayaa ay ku jiraan xildhibaano iyo la taliyaal muhiim ah ayaa qoray in muddu sii gelayo xiriirka labada dowladood warbaahinta caalamka oo kasoo baxda wadamada maraykanka iyo qatar ayaa waxay sheegeen in imaaraadka 3 duulimaad uu ka sameeyey soomaaliya lagu qaaday xildhibaano gaaraya ilaa iyo 28 mudane oo u badan golaha shacabka kuwa oo la sheegay in ay ku shireen magaalada Abu Dhabi ee xarunta waddanka
waddanka Sultanka Imaaraadka Carabta. sidoo kale warbaahinta caalamka ayaa qoraya in ku-xigeenkii xeeraliyihii qaranka ee dhawaan xilka laga qaaday uu ka mid noqday siyaasiyiinta dhawaan xiriirka la yeeshay dowladda Imaaraadka si uu difaaco xubnaha Imaaraadka ee taageersan oo la sheegay in dowladda Soomaaliya caburin lagu hayo. siyaasiyiinta laga helay xogtan ayaa waxa ay sidoo kale ay sheegeen in Imaaraadka xildhibaano badan iyo siyaasiyiin lacago fara badan uu ku siinayo sidii ay xilka loogu qaadi lahaa xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Khayre. siyaasiyiinta qaar ka mid ah ayaa loo ballan qaaday in xilka laga qaadayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre kadib dadaal kale lagu bixin doono sidii ra-iisul wasaare loogu magacaabi lahaa. siyaasiyiintaas qaar ka mid ah madaxda Soomaaliya ayaa la sheegay in Imaaraadka ay kala hadleen arrinta balse aysan wax natiijo ah ka soo bixin. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale xoojinaya xiriirka uu la leeyahay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira. warbixinadan la daabacay ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay caburinaysa dhammaan dadka ku xiran dowladda Imaaraadka iyo dowlado kale. inkasta uusan banaanka usoo bixin khilaafka labada dhinac, haddana waxaa jira cadeymo muujinayo heerka uu gaarsiisan yahay hirgelinta Imaaraadka uu ku hayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. mas-uuliyiinta ka tirsan xeerlaalinta qaranka Soomaaliya ayaa dhawaan waxay sheegeen inay jiraan xildhibaano iyo siyaasiyiin ku xiran dowlado shisheeye, waxaana arrintaas ay timid kadib markii dowladda Soomaaliya ay go-aan dhexdhexaadnimo ka qaadatay xiisada u dhexaysa wadamada khaliijka iyo dalka Qatar. walaalayaal waa maqlayseen, waa idaacad wax weeye maaragtay maxalli ah weeye oo wax weeye maaragtay aan kasoo approve gareeyey in maaragtay ay xildhibaano ka qaadeen xagga geeyeen whatsoever. annaka waxa waaye maaragtay cadowgayaga waa dhinac kasta waxa weeye balan A balan B balan C everything way nagu dayahayaan inay maaragtay futurekayaga iyo waxa waaye maaragtay ay waxa weeye intay wax u dhibi karaan u dhibaan. marka walaashay raaxma Imaaraadka naga qabta bay tiri. walaala waan qabanaya ilaahay insha Allah waxa weeye maaragtay waa iska qabanaynaa. Faaduma walaala adaa ugu dambeeya adaan kugu soo gabangabaynaya. halo assalaamu calaykum Axmed. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شيء وانكم سلام سيتا. walaal mihi maama weyn baan ahay ma fiicantiin Axmedo midnimo qaran ha noolaatay Soomaaliya oo dhan. ها hooye waan ku salaameynaa ha noolaata midnimo qaran iyo dhamaanteanba. midnimo qaran guur iyo gobonimo dhaqaatiirtina waad sheegtay hadda waa raggaad og tahay oo Cabdisalaam Gentleman iyo Boodari baa meel u joogo oo waxa weeye waa digax iyo Cabdilfaaruq iyo Hebel Eber iyo qaatil iyo magacyadu bixiyaan aad u jeclaa ma garad. aad iyo aad horta waan idin salaamayaa dhammaantiin dhalinyarada ku jirta maaragtay maahan ku raadaay oo qadar wada dhegaysanayso iyo kuwa dhegaysan doona. waxaan aad uga xumahay dowlad miidna soo arkin. aad baan kula socdaa adiga midnimo qaran oo dhan hooyadood baan ahay ima yaqaanaan maasha Allah tabaarakallah. laakiin waxaan idin sheegayaa horta sidaad u halgamaysaan iyo maaragtay dadaalka dheeraadka hood ku jirtaan runta xaqiiqada aad baan macnaha maaragtay baad ii soo jiidataan. ilaahay ha idin xifdiyo, Allah ha idin barakeeyo. futureka waddanka adinka weeye. odayaashaan wada maaragtay galowda iyo biyo buufkeena sarwaalka ka xiranaya galowdana ka diidahayo waa inay meesha baneeyaan waa inay meesha baneeyaan ood meesha maaragtay maxay ahaaytay ka cayrsataan. waad aragtay libaaxu wiilkiisa markuu intuu soo garab la soo noqdo maaragtay uu maxaa ku rahadaay uu arkay inuu landigi maaragtay maxay ahaaytay isagoo uu talinhayo inuu kusoo garbinhayo dagaal baa la galaa kii reeyaana ku dambeeya ma garad. ku dambeeya sax. nimanyow dagaalka iyaga habaad ku jirtaan waa inaad sida lionkaas u weengaraysaan saana la yiri iyo maxaan ku rahdaa hadda habar dhali weyda aleelo kuwaalatayda bay ku jiraan. waad aragtay kolkii ugu horreysay dowladdeennii oo bil jirtay waxay ahaadeen Kenya waa la soo cayriyey. maxaan ku rahdaa hawlo kale haddana sameeyeen waa la cayriyey. farmaajo ballantii uu qaaday yaa baabuur badan iyo dad badan lagu qarxiyo la yiri 100 kunkeen waa hagaagi weyday. nin Soomaaliyeed baa la dhiibay dowladda dhiibtaa la yiri waa ku fashilmeen waa ku waxa weeye u shaqayn weyday. 700 oo qof baa la dilay. inta dowladda waxa intaas oo qof loo leeyahay intaas oo dhibaato loo marayana dowladda la fashilahayaa weeye.
maxaan ku waa u shaqayn weyday oo jacayl iyo in gabdhihii la isii qabsaday haddana maaragtay ilaahay qadartii alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan bay haddana maaragtay dhimashadii tirada badnayd noo keentay qof walbana wuu dhimanayaa meelaan gaaraynana ilaahay baa og laakiin nabarkiina gaaray iyo dhibaatadiina gaartay waa midaan forever and ever and ever aan naga go-aynin grand kidskayga xitaa ay ogaan doonaan ma garata sax waddankiina waxaanu kasoo maqan tahay our lifeka naga macnaha aniga hadda maanta soomaaliya maamo weyn baan haddaan ku noqdona hal xaba kama garanayo ma garata aad iyo aad ayadoo nimco iyo burwaaqa tahay xamar sidiisaba iigu dhisan yahay hal habeen qandho inuu hal cunug oo soomaaliya joogana qandho macaarata meel la seexda ma jeceli kuwaan xitaa hadda mucaaradka wallahi in wax la yeelo iyo in la dilo midna ma rabo laakiin haddii inti loo duceeyo ay soo hadoobi waayaan oo hidaaya min allah ilaahay uuna la maagin nimankan meesha allaha dhaafiyaan leeyahay waqti badan bay soo qaateen maamo axmedow kursigay in badan kusoo fadhiyeen dhulkii bay gadeen baddi bay macnaha gadeen dhulkii kenya waad arkaysaa xagga maaragtay kenya xaggeeda waa lagu soo seeqaday dhanka maxaan ku rahdaa etoobiya xaggeeda cidna kama waranto oo maxay ahayd cidna ma oga inay soo jeexdeen iyo in kale meelo badan oo hadda waxaa la sheegayo xagga etoobiya oo korkaas kore ah xitaa inay maxaan ku rahdaa la wareegayaan cidna kama waranto waddankiina waa gadeen dhalinyaradii waa gadeen war ma noolin wiilashii soomaaliyeed intiinaan miidiyaha ka hadlaysiiyo waxoogaaga yararka ahoo abuuska lagu soo sameeyey oo wax nimanka xitaa hadda maxaabiista laga soo celiyey rag nool ma aha sax wax nool iyo wax caaqibana ma aha waa wax qalbiga laga dilay waa wax maaragtay abuse lagu soo sameeyey kuwa hadda ka buuxana waxa weye waa sidoo kale intiinaan iyo wax yar oo kale oo soomaaliya intaasna ay rabaan meesha inay ka saaraan weeye marka meel walba iyo fashil walba hadda fiiri beled xaway ka saaranta meel walba u hagaagaan markay garan waayeen hadda waxay iska dhigeen kacaan xagga iyo waxay aadeen hadda waxay dheen beled xawaan caawinaynaa maalin walbo waxa weeye meel bay waxay rabaan dadka inay miyirka u toosiyaan oo bil 9 bilood oo 8 bilood oo dawladda axmed oo hooyo ay soo jirtay bil walbo rubaayad cusub ay dhigi jireen maasha allah marka there is no dream dambe iyo wax dambe iyo game dambe ay ciyaarayaan ma jiraan dadkan waxa weeye caqiidadoodii iyo lifekoodii wuxuu noqdo dollar indhahooda dollar buu arkaa dhiig buu arkaa sankooda wuxuu uriyaa qurun wuxuu uriyaa maaragtay maxaan ku rahaa gubnood maalinkii waxaad ogaataa axmedow dhibaatadu dhacday oo albaabka gurigaaga dhinacaad ka baxda aad garan weyday dad baa lacag ka hadlayoo lalahaa lacagna lama siin dad baa waxay ka hadlahayeen qalbi dhagax 800 oo qof baa ilaahay baan kugu dhaarshay axmedow bal u fiiri adigu dib u fiirso waxa la wixii fiidiyoyo la duubay dhibaatadii dhacday iyo taabid xafidullah saa u ooyahayo meel alla wiilkaas meel u jeesta markuu garan waayo oo madaxweynihii iyo maxaan ku rahdaa xitaa maxay ahayd uu qayre miidiyihii ay ka quusteen ay carreen oo waxay sameeyeen garan waayo waagu ku baryay dad baa waxay ka hadlahayeen qalbi dhagax in the same day kawar dhalinyarada meesha ku jirto anigu warka waan soo gaabinay waan ku dheeraaday ciil badan faadumo walaalle ilaahay khayr badan ha ku siiyo waxa waaye waa run waa sida arrintaa noo sheegtay waaye waxaan dhaxalkeenii waaye wax lagu ciyaari kara ma aha 4 nin uma daba istaagayno hal kalmad baan inkaga tegaya waan ka baxaya hal kalmada insha allah ilaahay haydin xiftiyo ilaahayna haydin barakeeyo waxaad ogaataan garab kareecana ha ahaatee dhexdiina inuuna qashin soo gelin midnimo qaran guul iyo gobonnimo forever and ever insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كقوليسي وما هتصنته. ويدا من مقرن أدي أدبن السلامين الله كقوليسي أن قبلها وقبل قالي أوايه شرف بدن ملك استوى يشوغان أيك أهل جمه لفدبر كان أوايه الله كقوليسي وحواي وانكفانا فرحسن هاي مركب ولا ليال and almost 2 hours baan ku jiray taas baana deeqa walaalayaal calanka quruxda badan baana deeqda xaafadnimo deeqdo kaasa sharaf leh kaasa cizi leh kaasa xigmad leh kaasa walaalayaal waxa weeye maaragtay aan sharaf ku leenahay kaas baa walaaltinimadeeda iyo sharafteena ay ku jirtaa allaha noo xafido ilaahay ha noo guuleysiyo fadlan markaan calanka soo taaga wadnaha soo badiya wadnaha guduudka ah soo badiya
marka calanka soo bixiyo waa inaa meeshaan oo dhan ay wadna guduudan wada noqoto waay haddii aa walaalahaygii damiirka lahaa ama aad tihiin waa inaa meeshaan oo dhan wadna guduudan ay noqotaa calanka waa inaan qiimaynaa inaan xushmayno waaye every time aan aragno waxa weeye maaragtay in jacayl aan u muujino waaye guulaysta sharaf baad leedihiin ilaahay ha idin guuleeyo soomaaliya soomaali baa leh indhaha aan furno walaalayaal aan midowno waxa waaye maaragtay aan iska saarno waxa weeye maaragtay waxa nagu jira iyo tashuushka iyo waxa waaye maaragtay inaan nidhaahno waaye annaka mar kasta waxa weeye maaragtay kuma jirayno xaaba dabka lagu shita noqon mayno aad iyo aad baan idin salaamahayaa allaha idin sharfo intii soo qabatiri oo aan soo qaban walaalayaal raalli ahaada walaalahaygii kala maaragtay wixii aad kulleyba aad qabteen yidhi soomaalinimo iyo sharaf baan raadinaynaa allaha idin barakeeyo noo sheer gareeya aan dagaalano miiriyaha aan ka dagaalano meel kasta aan ka dagaalano waxa weeye maaragtay messengerka maalin kasta waxa weeye nafta nugu keenaan cid wax nagu siisa male waan difaacaynaa waddankaygaan difaacaynaa dadka yaan tashuush lagu furin fadlan waa idin baryahayaa tashuushiisa idin gelin futureka wuu qurux badan yahay believe me hal sano iyadoo joogta dawladdeeda allah noo barakeeya baad aragteen waxay qabatay baad aragteen haddii aan garabkeeda istaagno oo waxa waaye maaragtay next yearna waad arkaysiin hadduu ilaahay idmo hadda hawadii baan soo helnay intaasoo waxyaalaan soo helnay insha allah baddaa ku xigta insha allah waxa weeye lacagtii oo la dhaafay lacagta waayadii baa la dhaafay waxa waaye lacagteeniyoo soo samaysano qiimo le baa ku xigto adag waxa weeye walaalayaal futureka wuu qurux badan yahay waddankeena aan dhisano dhulkeena waxa weeye qof kasta dhul ha gato dhulka hadhow waxa weeye maaragta qaali buu noqonaya hadda ha laga faa'iidaysto dhismo aan ku bilowno ciidamadeeda aan taageerno oday baan soo sheergareeyey oo waxa weeye maaragta booliiska ahaan jiray oo waxa 80 jir camal waaye waa qofka ugu qiimaha badan weeye oo maanta nool oo booliiska nool waaye waa isagii noo sheegahayay midnimo qaran baan kusoo sheergareeyey accountkii ciidamadu noo sheegahayay waad aragteen waddanka Eritrea dadkooda $1 iyo $1 ay iska gooyaan baa waxa weeye qof kasta uu $800,000 uu ku qaataa cid wax siisa male section baa saaran waad aragteen waxa weeye qof kasta oo ciidankooda suu maaragtay sharaftuu leeyahay calanka markaan soo taaga wadnaha la soo badiyo fadlan calanka markaan soo taaga wadnaha la soo badiyo adinkoo raalli ah wuu nagu weyn yahay dad baa usoo dhintay soomaali baa usoo dhimatay dad qiimale baa waxa weeye calankaas usoo dhintay quruxda badan oo adduunka ugu quruxda badan marka walaalayaal waxa waaye maaragtay futureka wuu qurux badan yahay waqtigii wuu igu dheeraaday aad baan idin salaamahayaa sheer gareeya bukaan socod ha gaadho inta soomaali necab ha gaadho calankaa waxaan usoo qaataa waxa weeye maaragtay inta soomaali necab futurekayga necab ma eegi karto runtaa idin sheegahaya ma eegi karaan indhahana ma siin karaan marka waxa weeye inta damiir kale baa maaragtay iyo inta iskale oo dhaxalkooda uu yahay baa walaalayaal ku laab qabowsanaysa markay arkaan quruxdiisa allaha noo daaya allaha noo xafido madaxdeeda allaha noo xafido aad iyo aad baan idin salaamahayaa meel kastoo aad joogtiin noo sheer gareeya waa mahadsan tihiin allaha idin barakeeyo